qisad ku saabsan ninkii jacaylkiisa aad looga sheekayn jiray qays iyo leela dhex martay ninkii markaa qays ayaa jacaylkii leela ayuu u waashay daraaddeed markaasuu derbiyada iska seexan jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay isagoo jidaar dhudhunkanaya gidaar derbi buu dhudhunkanaya markaasaa lagu yidhi war qaysow maanta waalidaadii ma waxay kuu geysay derbiga inaad dhunkatid markaasuu yidhi uqabilu daljidaari wa daljidaar wuxuu yidhi jidaarkan aan dhunkanayo isaga maaha waxaan u jeedoon dhunkanaye gidaarkan gadaashiisa leyle ayaa degan oo jacaylkii leylaan u dhunkanayaa buu maalin kalaa la arkay isagoo ay haysto oo dhunkanaya war aygana maanta maxaa kugu salliday wuxuu yidhi aqalkii leyle ay ku jirto ka soo baxay buu yidhi ka soo baxay maxabbadu eeg haddaan ilaahay jecel lahay oo nebigiisa aan jecel lahay sal allahu alay wasalam mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna haddii salaada la adimo magaalada intoo baabuurada la joojiyo oo basaska la joojiyo oo maqaayadaha la xidho oo dukaanada la xidho ayay masaajidu camirmi lahayd masaajiduna inama qaadeene bal waa laysa sugi lahaay oo la odhan lahaa annaguna han tukana jamacii miskiidkii buu naga buuxiye ka soo dareere baa la odhan lahaa salaada jamaca hadda maan ku xidhan lahay low kaana xubuka saadiqan la aطactahu hadday jacaylku uu dhabkaa yahay waad adeeci lahayd ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninba ninkuu jecel yahay buu adeecay dhalinyarada kubadda jecel kuwa kubadda ciyaara isku ekaysiiyaan kuwa heesaha jecel kuwa fanaaniinta la yidhaha bay isku ekaysiiyaan kuwa siyaasadda jecel siyaasiyiinta isku ekaysiiyaan kuwii nebi maxamed jecel nebi maxamed bay isku ekaysiinayaan magaalada madiina ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay madiina yahuuddii la deganayd ansaar oo maalinta caashuuro la yidhaha soomaysa waa 10 muxaram weeyaan markaa buu nebigu ku yidhi waa maxay yahuuddu maalinkan ay soomayso markaasaa la yidhi waa maalintii ilaahay nebi muuse uu ka badbaadiyey waa maalintii nebi muuse iyo reer bani israa'iil ilaahay jalla wacala uu badda u dilaaciyey ee dariiqa ilaahay uga jeexay badda ee laga badbaadiyey halaagga ee cadowgoogii fircoonna la halaagay weeyaan nebi muuse soomay calayhi salaam annaguna waxaan u soomaynaa shukri iyo mahadnaq baan u soomaynaa oo waa diintayadii iyo nebigeygii baan ku dayanaynaa markaasuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annakaa uga xaqle muuse sooma caashuuraa kal dambe haddaan gaadhana sagaalaadkan ku dari buu rasuulku yidhi yahuudda muxuu nebigu ku khilaafay caadaadkii kuma khilaafin bal wuxuu ku khilaafay cibaadaadkii buu ku khilaafay mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaanba ha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka caashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa caashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku darisaan yahuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yahuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadannay tarbiyaddii baan ka qaadannay tacliintii baan ka qaadannay zawaajkii baan yahuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarna alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka miduu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecaddiisa
وطبيعة waxaa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka Madiino dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina Julaybiib ha iskaga dhisina min dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanaya Madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninku nabigu leeyahay ninkii reer Madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabiga yidhi nabi allow adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi Julaybiib baan la doonayaa Julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer Madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayay ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu oran jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min as-sunna weeyaan Xafsa binta Umar markuu ninkeedii ka dhintay Umar bin Khattab intuu socday ayuu Uthman u sheegay ku yiri haddaad doonto inantayda Xafsa waan kuu dhisi markaasuu Uthman yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa Umar waan fikiray waxa ii soo baxday sanadka maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahaw jazakallahu khayr buu ka yidhi haddana maalin kale Umar socdo Abu Bakar buu la doontay Xafsa yidhi ya Abu Bakar Siddiq haddaad doonto inantayda Xafsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu Abu Bakar uu ka aamusay لماذا محو عمر إن أنتي حفصة وعثمان يا عمر ويا أبو بكر وأبو بدقيا ما تقانا عرفي قبرقا مسلمين تو أي لهايا وحا كمدها إن أنتو هدي قادك دادي قبلها اللي قبور سنيي وحا أصوها صاوايا أبهد ولا الكيد أدير كيد يا أبتقيد هل كأنكو أن لنا سوء يقول أروحاني لنا يا أبا متشغية أوندي يا ولي بهيئتها وشغية هيئتها اوغا هيدا خرش بدن بريها الموقتة لا اله الا الله سو ايغا ماها علال ان انتادو اني دبد او سو بخدا ماها وقرنا في بيوتكن ان انتادو وين حق دم فديدا جلبابك ugu horeeya gabadha muslimadu ay xiranayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay أما أبتجد هو يلا ده شيء أما ولا الكيد بسوق حين يصور راعيا لماذا ما هيوصل راعيا ما هن تسلط إيو سيطرين قبلها الله سيطرين إيو واختيارك الله قاعد يا همودن إن يا مسلمتي بل أدوكو كو إلى يا وقارد غور كاجي وكيكو إلى لنا يي أدو كا إلى لنا يا أدوكو كا إلى لنا يا توكتو كا إلى لنا يا دتك مجرمين تو كا إلى لنا يا فسقدوا كا إلى لنا يا سيدا لعقتا يا دايما كا ميل قال يا الله ديغو ميل أن لا أركين لو قردو أيا قبدا مسلمة دي مؤمنة دا أي دين الإسلام ميل في عنو دكت هذا يدكو إلى لنا يا إنك أنا ما أنت واحد لقد دعيي دين الإسلام كدو مرك اختيار كي بيكا قادو أقل هذا فردي يا بيتري أقل كفردي شرفت هذا أقل كينا الفردي دا كوكو فلان شرف بيكوتا يقول كينا الفردي دا صدون دون ماها أبي بكر عمر إسقى أدون أوها سوين أنتيسي إن أنت هذا الشيء ذاتك الخير كتهم يسوع إن هذا بدك تانا عيب ماها ما أنت إنك حاجة نوح على أركا أدونكوا إن أنتي سو رجع أوير وصوها ساو وحلا يسألون بوسلية هاي ورمتوع عقلوها يا ونوع عمينا يا ماي عمر باس عثمان وبندقي عثمان وجوابه أبو بكر بوم بندقي أبو بكر واقع مصي مدير كذب وحصودون حفصة رضي الله عنها نبي محمد صودون عليه الصلاة والسلام لأن مركب النبي قرصه مركب قركاس أردم ماذي أيا مالين دم بعمر يا أبو بكر با كلمي أبو بكر با هذا الكقاتو يري
يا عمر ملها قلبك وحبادي يقول هيسا مرقاسوا له ها أقول هيا ورتابان عثمان بندقي وجواب وفي ويسيي هذا كان واقو بندقي وهذا كان مستي هاي أنا إماد أورن ما أنا إماد أورن مرقاسوا أبو بكر كويري أنا وحان أوجا نبي محمد وحفص هذا الهيان أوجا مرقاس سرت النبي جاينا شيئان ديدنا هذا النبي وحفص ودافي لها وسكديني لهانا والله أنا كابرسل لها بكي ساسا مركا النبي كو اوغاداي رير مدينه رير كان انصاريد gabadhoodu inay qaan gaadhay waxa uu nabigu ku ogaaday baa la yiri nin kasto ansaariya haday inantiisu qaan gaadho intuu nabiga u yimaado oran jiray ya rasuulullah gabadhaydii way gaadhay daadii gabdhaha lagu bixinaye hadaad adigu doontana waa ku diyaar hadaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nabigu marka u weydiisto ku yiri inantiina ii dhisa markaasuu nicma wa qurratu aynin ya rasuulullah wa ni'mad isheeduna way ku qabo way ku raaxaysaniyeen waad heshaa markaanu nabigu ku yiri anigu maaha waxa rabee waxaan u rabaa Julaybiibna waa ninka nin soo sheego waa la yaqaan dabiicadiisa markaasuu Julaybiib ha u istaagay ninkii inanta hooyadeed ban la soo tashanaya dabaliikaadi markaabuu nabigu hay la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisii u yimiday wuxuu yiri inanteeni waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tiri markaasuu rasuulka ilaahay ba soo doonay markaa bay tiri ni'ama wa qurratu aynin wa qurratu ayn wallahi wa ni'mat وانا كل حيسنينا وندهينا كفر حيه وانسيني نبي محمد مركاسور نبي نفتيس ومربو مركا بدر هذا ايو ربا مركاسور جليبيبا ساسيتري جليبيب مركاسيتري مي جليبيب مسينين انت يدا هبل با سو دوني وانو ديني هبل كلا سو دوني وانو ديني جليبيب وانكا تقاني ادغنا ee magaalada Madiino dhan lagu hadal hayay lagu ballamay inaan baloo dhisin war Julaybiib u dhisameeyay qof kale nabigu ha keeno hadalka markay ku tiro ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tiri hooyo aab aniga dhageysta ma nabi maxamed baad amarkiisa celinaysan bay ku tiri alfis ma nabi maxamed alayhi salatu wassalaam oo aniga ibixiyay oo Julaybiib yiri siiya miyaad amarka nabi maxamed celinaysan oo diidaysan wallahi bay tiri halka uu nabi maxamed raaliga uu igala noqday aniguna raali baan ka ahay ibixiya bay ku tiri markaas ay ku tiri islaantii waa run hadalkaasi orodoo nabiga uu sheego ku dheh halkaad raaliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raali baan kala noqonay markaas saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi Allah inantii Julaybiib waan siinay aro guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxa dhacday fazca waxa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi Allah waa ninkee markaas Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doonto waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isaga kamid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isaga kamid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yiri gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaan laana ducadii nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam